الله أكبر الله أكبر الله أكبر سومالنا هكوليستو سومالنا هجرتو هجوكتو شعبك سومالنا ميلا جوغان بهكوليستان مدحوينها قرن كي حكومتي سو هكوليستان ciidamadeenna qaranku ha guulaystaan shacabka reer Gabiley goobtiina ha guulaystaan walaalayaal waxaanu halkan uga mahad celinaynaa oo si sharaf iyo maamuus iyo karaamo ku dheehantahay u soo dhawaynaynaa wafdiga heer qaran ee munaasabadda qiimaha badan leh maanta inala muunaynaya ee uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta wasiir Cabdilaahi wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga gudoomiyaha hay'adda ka hortagga aafooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland Mujaahid Faysal iyo xildhibaan Cabdikariin oo ka jooga golihii wakiilada iyo dhammaan shacabka kala duwan ee gobolka Gabiley oo aan u salaamayo badhasaabka gobolka oo madaxweynaha gobolka ah waxaan idinka mahad celinaynaa shacab ahaan muddada 7 cisho ah ee habeen iyo maalinba aad u feejigneedeen si aad u muunayn lahaydeen maalinteenan weyn ay nagu joogto dhiigga iyo dheecaanka ee 18 May waxaanu idin leenahay waxaad muujiseen gobonnimo xilkasnimo iyo wadaniyad aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa idin hambalyeynaa hooyooyinka hablaha caruurta inamada dhammaan shacabkeega goobta ee habeen iyo maalinba u jooga xuska maalintan qiimaha badan leh waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa guddidii qabanqaabada ee uu hogaaminayay xildhibaan Mursal Maxamed Jaamac ee inoo diyaarisay madan qiimaha leh inoo diyaarisay bilicda magaalada aynu ku xusanay maalintan qiimaha leh iyo dadkii gacanta ku siinayay ee farsamo yaqaanada ahaa walaalayaal maalintan aad iyo aad ka qiimaha u leh waxaynu hambalyo u diranaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee xukuumaddiisa golayaasha qaranka ururada siyaasadeed qaranka iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo aan jecelahay inaynu si gaar ah u salaano u hambalyeyno una duceyno ciidamadeenna qaranka ee difaaca iyo ilaalinta qaranka ku mashquulsan ee heeganka ku jira ee cadowga ka difaacaya qarankan ku soo duulay waxaynu u duceynaa saraakiisha ku geeriyootay dagaalka xaq darrada ah waxaynu u duceynaa askarta ku dhimatay waxaynu u duceynaynaa askarta ku dhaawacan oo leenahay ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo waxaan u sheegaynaa inaanu garab joogno annaga iyo shacabkayaguba aanu u ducaynayno hiil iyo hoob aanu la garab joogno iyagana waxaan leenahay dhabar adayga walaalayaal maalintan aad iyo aadka qiimaheeda u leh waxaad dareensan tihiin in cadowga Soomaaliland inagu soo duulay iyadoo arrintaas sabab u tahay dadaalka weyn ee ay sameeyeen xukuumadii kala duwan ee qarankan oo ay ugu dambayso xukuumaddan uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi dadaalada ay ka geysteen siyaasadda arrimaha dibadda oo sababtay in dawladda Mareykanka ee ugu xoogga weyn la adduunyadu ay ka garawdo awooddeena iyo istaraatiijiyaddeena iyo dalnimadeenna oo ay nala yeelato inala saxeexato heshiis wada shaqayneed arrintaasoo taariikhda markii ugu horeysay guul weyn u ah qaranka Soomaaliland oo aynu siyaasadda arrimaha dibadda ka gaarnay waxa intaas soo raaca dalka gudihiisa dadaalada ay xukuumaddu ku samaysay oo maanta aynu marano inaynu shidaal la soo baxno oo qaninimadii ugu horeysay qarankeena noqonaysa iyadoo xusid mudan tahay wasiirkii ku guuleystay shidaalka inoo soo bixi doona inuu goobtan inala joogo guulaha iyo barwaaqada iyo himilooyinka aynu gaadhanaa waxay godka ka soo saareen oo adkeysan kari waayay cadowgii qarankan u lahaa oo ku soo duulay ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu inaga qabto waynu ku kalsoonahay xukuumaddeena maanta waxa aad iyo aad cajiib u ah oo aynu ku hambalyeynaa madaxweynaha Soomaaliland inagoo difaaca iyo dagaalka ku jirna ciidamada Hargeysa dabaaldega ku sameynaya iyo waxa tiknika iyo hub iyo gaadiid la soo mariyay oo ay waliba ku jirto daroontii bilaaduuliyaha ahayd oo ay xukuumaddeenu ku soo bandhigtay maanta caasimadda Hargeysa waxay muujinaysaa hiilka iyo wanaagga iyo guusha qaranka Soomaaliland uu madaxweynaha qaranku ku hogaaminayo waxaynu leenahay hambalyo inagoo dawlad curdina oo aan taageero dhaqaale haysan inaynu awoodda intaa leeg soo bandhigno waxay muujinaysaa runtii xilkasnimada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland
madaxweyne waa ku hambaleynaa waxaanu shacab ahaan reer gabiley ahaan diyaar u nahay waxay ahayd gabiley halkii halganka qaranku ka bilaabmay ee dib u xarayntu ka bilaabantay waxaanu diyaar u nahay annagoo shacabka iyaga gobtaa kaashaana inaannu qaranka wanaagiisa isku duubnidiisa horumarkiisa iyo difaaciisaba aanu kaalinta hore kaga jirno kagana jiri doonno aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahad celeynaa ilaahay Soomaaliya ha guuleeyo Soomaaliya ha guulaysato shacabka Soomaaliya ha guulaysto xukuumadda Soomaaliya ha guulaysato madaxweynaheenu ha jiro ha joogo cadowgeena ilaahay ha jabiyo walaalaheena la qaldayana ilaahay ha fahansiiyo xaqa iyo wanaagu inuu ugu jiro jamhuuriyadda Soomaaliland walaalayaal cadowgeena waxay adeegsanayaan hadday argagixiso tahayna diin bay ku soo gabanayaan hadday siyaasiyiin calooshooda u shaqaystayaala oo aan dadka dhiigooda iyo noloshooda dan kala ahayn ay tahayna waxay adeegsanayaan hadallo macaan iyo waxyaalo aan jirin waxaad arki karaysaan oo tusaale idinku filan laascaarood waxaa ka dhacaya kuwa durbaanka tumaya waa siyaasiyiin aan shacabkooda dhimanaya qax iyo dhibaatada soo gaadhaysa aan dan kala ahayn oo qaarkood caloosho u shaqaystayaala qaar baad ogtihiin wasiir shalay ahaa oo maanta ku baaqaya in dalka la baabi'iyo waxa dareemaysaan inay dantoodu arkayaan in ummadda shacabka iyo wanaagooda iyo sharaftooda dareemayn waxaan doonaynaa inaynu taana dhigu yeelano oo aynu si dhow la soconno ilaahayna hay naga qabto aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هادو ما تيجي دوميو مدرح سودوي